عاوية ولادينا بلدوين. صدقنا بهيو أبقيل وليا صدقنا بهيو أبقيل وليا كبداني تبيانا بقول كاتريسان ليبا وكليسان كبداني تبيانا بقول كاتريسان ليبا وكليسان بقركا وحيستي أبا وليجي وكا أبان باني بقول الكل رقبريه يحونا نالكودي بابا أي نالكودي بابا أي بقركا وحيستي أبا وليجي وكا أبان باني بقول الكل رقبريه يحونا نالكودي بابا أي صدقنا بهيو أبقيل وليا صدقنا بهيو أبقيل وليا كبداني تبيانا بقول كاتريسان ليبا وكليسان كبداني تبيانا بقول كاتريسان ليبا السلام عليكم عبدي رمضان كريم مسلمين في مركز الجوغان maanta waxaa banaanka aadana familkeena dhan waxaa ogaanay inaa maxadrada tabaaleysan ay jiraan oo ramadaanka ka soo bixi karin kaligooda is badbaadi karin marka waxaan go'aansanay inaa magaalada dhan soo wareegno oo lacag soo aruurino waxaan dhihi lahaa inay soo baxaan xoogooda sadaqaystaan ajiray ka helayaan lacag looma baahno mararka qaar inaan dhidido waayo sida lacagta loo helo marka soo baxa shaqeeya walaalihiin caawiya inshallah salaada jimcaha soo aaday markaas waxaan ogaaday in maanta ay jirto caawina shaqadan marka familka dhan u wada sheegay kadibna waa soo wada waday kulligeena waa imaanay السلام عليكم رمضان مبارك halkan waxaan u taagana maanta inaan caawino walaalaheena beledweyne waxaan rajeynayaa inaan maxaa lahaa qof walba awoodo halkan imaado lacaga bixiso way wanaagsan tahay inaan caawino laakiin waxa ka sii wanaagsan xoogeena inaan maxaa lahaa u caawino oo soo aruurino sadaqada maanta waxaa jaan soo helnaa halkan inaan imaano walaalaheena caawino maxaa lahaa ayka ma awoodaan inay iscaawiyaan walaalaheena ku dhawaatay beledweyne oo biyaha maxaa lahaa meel ay jiiftaan cunto cunaan waxyaabo haysan inaan caawino رمضان كريم يا يلبى الله صمم ما شاء الله hadda waxaan maraynaa oo aan dhex taaganahay Greenland qaybta tagaasida Axmed Taajir السلام عليكم waa u mahadcelinaa reer nuxur say mataqaana arimaha gargaarka mar walba ugu adeegan saakay 12kii ilaa haddan mataqaana meeshan taaganahay xoogaa alxamdulillah waa ku jiraan insha Allah marka waxa uu aruurinayna waxay ahayd dadka walaalaha ee reer beledweyne ee mataqaana fatahaaduhu ay saameeyeen marka dadku magaaladii ka barakaceen qof gurigiisa ka barakacay oo maarta meel banaana joogo duruufta uu ku sugayaan waa la dareemi karaa culayska haysta sida awgeedna waxa waxaan leenahay qof walba Soomaali ah ee halkan jooga iyo kan naga maqan ee maaragtay TV-ga naga daawo doonana leenahay wax ku tabaruc insha Allah. السلام عليكم رمضان مبارك meel walba muslimiinta joogaan waxaan go'aansanay maanta familkayga inaan ka qayb qaadano sadaqada loo guray dadka walaalaheena tabaaleysan marka insha Allah cid alla cidii awoodana waxaan jeclaan lahaa inay ka qayb qaataan xoogooda iyo xoolahoodaba ajir ayay ka helayaan waxa la sadaqaysto ugu wanaagsan waa xooga marka insha Allah annaguna Ilaahay nagu guuleeyo maanta walaalayaal Ilaah baa mahad iska leh waa maalintii ugu dambeysay ee loo aruurinayo masiibada ka dhacday Hiiraan khaasatan beledweyne ma arkaysa walaalahayo qof kasta oo muslim ah oo ma arkaysa ku nool adduunka dacaladiisa khaasatan Norway khaasatan Oslo maanta waxa loo taagan yahay caawinaad oo la caawinayo walaalaha ku dhibaataysan beledweyne
dad badan ayaa hooy waxay cunaan waxay cabaan aanan haysan dadaa qaarkood bannaanka jiifa gaajo waxay xirtaan waxay cabaan aanan haysan waad arkaysaan hadda wararka ugu dambeeya laga soo sheegaya magaalada beledweyne waxa waaye kaneeco iyo ma arkaysaa masquulidii soo fatahay dhibaato fara badan ayaa laga sheegayaa walaalaha muslimiin waxaana muslim lagu yahay in lees caawiyo ina ma arkaysaa maalintii dhib jira lees garab istaago maanta waxaan u taaganahay waa bil barakaysan xooga hala sadaqaysto dhididka hala sadaqaysto maalka hala sadaqaysto ilaahay baa nagu xafidaya hadda waad arkaysaan odayaashu inkasta ay shaqaynayaan dhalinyarada ayaa shaqadan u taallaa mar walba dhalinyarada ayaa ka firfircoon dalkan ma arkaysaa inay samata bixiyaan hooyooyinkii waa taagan yihiin wiilashii way taagan yihiin odayaashii way taagan yihiin weliba waxaa loo baahan yahay in la dardargeliyo laga seexan loo istaago gacmaha la isqabsado waxa ka taagan beledweyne u istaag ilaahay subxaanahu wa tacaala ajar iyo dibadhaafa kaa siiyo dhibaatada ka taagan beledweyne waana mahadsantihiin allah idigu xafido السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلدوينة فتحات أيام مانت وتاجنا هاي أنا قول صومن إلى أجري حسنات هالنقصي أنتي شقينيسي waxaan u mahad celinayaa walaalkayga qaaliga cameramanka ama duubaha aad iyo aad u mahadsan yahay waa maalintii labaad aan ka shaqeynayno maalintii hore sambuusi waxaas iyo caagay ahaayeen maanta caag oo kaliya la qaaday maadaama dadka ay soomayin waxba aysan gadi karin ay dambi tahay ma sha Allah dhalinyaro aad u fara badan gabdho aad u fara badan ayaa wada shaqeynayo waxa aan leeyahay walaalaheen meel kasta ay joogaan inaan caawino walaalaheen dhibaataysan waa bil Ramadaan waxa dhiibeynaa sadaqooyin aad u fara badan inay dhiibaan waaye gacantii wax dhiibto ay wax soo gashaa caruurtaadoo kale ka soo qaad oo baahan hooyadaayoo dhibaataysan ka soo qaad ehelkaagoo dhibaataysan ka soo qaad qof kastoo muwaadin Soomaaliyeed muqaddis ay ku tahay caruurta Soomaaliyeed iyo hooyooyinka in ay badbaadiyaan meel kasta ay joogaan dunida dacaladeeda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله والله شقة في عن مارتي هاينا مشان dadkuna aad uma badna maanta waxa u malaysaa in fasaxay jirjiraan dukaamada dhaqsaal la xiray laakiin wali shaqada noo socota insha Allah waa dadaalina inta tabarteen السلام عليكم qaraabada sharafta leh waxaan mataqaanaa ku howlanayn aroorinta lacag loo aruunayo magaalada beledweyne oo dadku ay ku fataheen wabiga marka insha Allah waxa waay xoog iyo maskaxdaba iyo maalkaba in mataqaan la bixiyo si dadkaas walaalaha ee Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen wax oo maarad gargaar ah bismillaahir rahmaanir rahiim waxaanu joognaa galabtay wali sabtinimadii 19 May run ahaantii meel fiican bay xaaladdu maraysaa dhammaan dadkii maanta waxa roorinta galay ama insamling sakshoonka galay banaanka ay intooda badan wali jiraan in badan oo kamid ahina way soo xaroodan kala barbar banaanka jira ilaa ya tiradiina waa ku bilownay laakiin totalka saxda waxa la ogaan karaa markii ay soo wada xaroodaan meel fiican way maraysaa runtii aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaan si leenahay sidii aan maleynay si ka fiican bay xaaladdu maartay u dhacday aad bayna u wanaagsan tahay waxaanu leenahay dhammaan dadkii hawshan ka qayb qaatay intii koombooyinka qaaday intii lacagta bixisay intii ka shaqeynaysaba ajar iyo xasanaad ilaahay ha ka siiyo waa wax lagu faana runtii in la heli karo dad Soomaaliyeed isku duuban oo saan oo kale uga qayb qaata markii hawl ay timaado saan oo kale aadna runtii qof walbana waxaan maleynayaa inuu doorkiisa qaatay intii soo xaadirtay inta ka maqnayd oo wada kala socotayna waxaan leenahay inta ka qayb qaadatana waa mahadsantiin inta kale tana ka qayb qaata ka faa'iideysta sadaqadu waa shay muhiim ah bil Ramadaan ayaa lagu jiraa walaalihiin way waxa aad caawinaysaan marka waa runtii xilli laga faa'iideysto ayaa maartay la joogaa waa la idin fududeeyay waxa maartay meel walba aad ka heli kartaan macluumaadka aad wax ku bixin lahaydeen haday fibis ahaan lahayd haday koonto tahay iyo hadii ay terminaal tahaba terminaalada goobaha lagu aruurinayo oo saldhigyada sida muxuu ahayd goob kasto ay joogan dadka dharka aan sito kale sito buluuga sita jakada buluuga sita waa ay hayaan terminaalo qofkii fibis ku bixinayana sidoo kale koontaduna mar walba muxuu ahayd hawada ay ku jirtay laga soo bilaabo 7 May marka walaalayaal ka faa'iideysta waqtigaas aad muhiimka u ah aad iyo aad bayna waxa idin sheegayaa in resultaadka ilaa iyo hadda meel fiican uu marayo gobolada qaar badan ba sidoo kale keenay muxuu ahayd lacag keenay oo
sida gobolada ugu soo hormaray hadda waxaa ka mid ah Fredrikstad waxaa ka soo ka mid ah Jövik waxaan malaynaynaa meelo kale oo badan inta galabtay inay maartay soo diraan ayaguna marka xaaladdu aad bay maartay u wanaagsan tahay jazakallahu khayr baan leeyahay ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa meel kasta ay joogaan عاوية ولالينا بلدوينة عاوية ولالينا بلدوينة kubadaadi dadkaaga boqolkaad diraysan layba waad helaysaan kubadaadi dadkaaga boqolkaad diraysan layba waad helaysaan boqorka waxaystee abbaha weligii waa ka abaalba'an boqolaal kunoo ruxbarihiiya waxaystee abbaha weligii waa ka abaalba'an boqolaal kunoo ruxbarihiiya xoolakoodii baaba'ay sadaqada bixiyo habaqaynin weliga sadaqada bixiyo habaqaynin weliga kubadaadi dadkaaga boqolkaad diraysan layba waad helaysaan kubadaadi dadkaaga boqolkaad diraysan layba waad helaysaan